قادن أقدر من رقودين تإلاله هدياتاس سمين أقسانا ولساس تهيئ ورابها راتا حفظ قرآنك ولا شيء أكسن سيتر مركا وقرطاق بقاكسن تقضونا طول جركاقا ميقاقنا سرياق بهولسن هذا الكيقا يلا شيطان رميسن سيوسن هبيا بأكوبا قامن لقن كاقنا ولقاقا كلاحا وهقاجي كان يلمذهن هبيسن حفظ قرآنك ولا شيء أكسن سيظهر مركا وقرطاق بقاكسن تقضونا طول جركاقا ميقاقنا سرياق أهلا 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 بكم أحبابنا بمدينتنا لقبقلا وبمركزنا بشرا بشرا ببنات الحي والبنين بمدرسة القرآن والمتون وبمركز كالبدر التمام بلا سحاب وغيمان وفي الحديث والسيرة والفرقان وفي علمنا تبجيل الكبار والصبيان واحترام الأبوين وذي شيب والشبان لا تذهل وتنسى المعلم والمدرسين سلام لشيوخنا وآبائنا وأمهاتنا الحنون وعلى الضيوف الكرام والسامعين. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تعوه فأشربت معنى ضمير شأنه فأعربت بالحال في الألحان ثم الصلاة مع السلام اللائق على النبي أفسح الخلائق محمد والآل والأصحاب. waxaan ku daraa magacaygu waxaa la yidhahaa cabdi xuseen daawid waxaan ka mid ahay ardayda dhigata makraska imaama shaafici. dugsigan dadka dhigta qaybo kala duwan ayaa isleeyahay. qaybta u horeysa waa arday oo ilmo yar caruur, qaybta labaad waa dad dhalinyaro ahoo dad weyn, qaybta kale waa dumar. dugsiga waxyaalaha lagu barta fanni kala duwan ayaa lagu bartaa. fanniga koowaad oo lagu barta waa fanniga quraanka ah, fanniga xadiiska ah, fiqi, caqiida, siira, waxyaalo badan fanniyaal kala duwan ayaa lagu bartaa. saas darteed dugsigu waxa uu qol haysto meel ay wax ku bartaan haysta ilmaha yar oo caruurta kaliya. dumarkii iyo dadka waaweyn labadooda qayboodba waxay dhibaato ka haystaa ma haystaan meel ay wax ku bartaan. dadkan waaweyn waxaas wax ku bartaa marcidiisa coddaas soo diyaari oo mashquul meelahaas wax ku soo diyaari iyo mar geedahan abaqda oo raxda hoostooda ay wax ku bartaan iyo mar masaajidka ay xogo wax ku akhristaan. marka dhibaato waxay ka haystaa meeshii jawigaas ku deganaay oo ay wax ku baranayeen oo ay wax ku xifdinayeen. saas darteed waxaan codsan lahaynay dadka muslimiinta oo ilaahay wax sii in ay noo dhisaan mutuun kutubta lagu xifdiyo inta badan. cilmiga waxa aas u barashadiisa meeshiis ku baranaysi inaas haystid. meeshiis ku baranaysi hadaas haysan waa dhibaatada ugu weyn oo horta imaadaysa. هلا حسين معلم حسن waxaan ka tirsanahay macallimiinta meesha dadka wax ku barta gaar ahaan dhinaca kale waxaan ka tirsanahay ardayda meesha wax ku barata. video kan soo gaaro arki doontiin insha Allah waxa dhibkana haysta noogu badan meel wax ku barna mar macallinkan uu tagnaa gurigiisa surdaa mar dhibkan haysta kamid tahay masaajidka oo dadka dhan u dhaxay wax ku barnaa oo mar oo la mashquulo loo dhahaa in waa iska dukanaa masaajidka waa mashquul iska dhaha. marka macallinka baa iska daba ordnaa qolkiisa ugu tagnaa email kale dadku waxaan ku codsanaynaa intaas video gan gaari in noo la hagaajiyo meel wax ku barna oo kutubta ku xifdina. haddana sheekha Khayrlaasi wax noo dhameey kutubka Safiinatu Salaah oo weekad la soo dhaafay dhameey. haddana waxaa la bilaabay kutubkii Abi Shujaac. hadda kutubka Safiina oo ka akhrina وعمل مبطلات الصلاة صلاة وحبري فإثنى عشر
لبي واي فأول متك كوبات الأول متك كوبات قطع شرط إن لواي واي من شروط الاثنى عشر شرطها سو كمد هاي شروطه لبي تمنك ولا سو شيء عمد سكسي ولو بإكراه أم هلو قصبه أو سهوا أما هلمايا أو جهلا أم جاهل لما ودعيابا. الثاني وحلبات وصلاة بورية قطع ركن إلا جروي من أركانها أركان تهذي كمده أركان تاسو 19 سقال التمنى هذا لسو شيء عمدا سكس فإن كان هديته سهوا هلمان أتى أولي ماذي به السجة إذا قرتي ذكر واس حسوس ولا يحسب الله محسابي ما فعله واحد سمي بعد ما تروكي مكاس كتب حتى أنت يأتي أزلي ما به السجة كاس صلاة والسلام. حنبرت كتاب زبد وفقي عن كهرنا كتاب الحج والعمرة. الحج فرض وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة وإنما يلزم حر مسلما كلف ذا استطاعة لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب إلى رجوعه ومن مركوب لقى به بشرط أمن الطرق ويمكن المصير في وقت باغي أركانه الإحرام بالنية تفيق بعد الزوال التسع تعرف وضاف بالكعبات 7 ساعة من الصفا لمروة مصبعة ثم أزل شعرا 3 نزرة وما سوى الوقوف ركن العمرة والدم جابر لواجباتي أولها الإحرام من ميقاتي. بسم الله. كما دا أرتضي واحد برت هري الله فضلي وحنا آخرنا كتاب إلى زبد كتاب يرجسه. باب الوضوء موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرة الرجل لا محرم وحائل للنقل كف ومص فرج بشر ببن كف واختير من أكل للحم الجزري ومع يقين حادث أو ظهر إذا طرى شك بضده عمل يقينه وسابق إذا جهل خض الدم قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. كتاب كرجوسة. وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في 7 وحظر لحم الحوم للأهلية فيها ومتعبين السردية ثم على أمي حبيبة عقت ومهرها عنه النجاشي نقت وصم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية ثم اعتد منبغي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة. باقي يفرين توحي تاي dadka muslimiinta gaar ahaan kuwa meelaha xigtada meelaha diinta ku socda kaalmeeyo garab istaaga si guudna meel walbo qof muslima joogo madrasa ka dhisan tahay maanta xalkeeda waan ognahay marka madaaristaasi diinta lagu baranayo caruurtii lagu soo saaray wax ku bixiya oo caruurta meel fiican u dhisa waxaan ognahay iskuulada dadka kuwa perfectka iyo kuwa dawladuba in ilmaha waxyaalo fiican loo dhigo meel fiican lagu baro meesha ay kuwa diinta barto la rabay inay dadku kor u qaadaana ay meelaha ay wax ku bartaan mararka qaar aad isleedahay madada looga tiragalay bisaari baa lagu xaraystaa waxaana keenaya dadka muslimiinta danaynta ay danaynayaan diintooda aad u yaraatay saadarteed intaad wax kale u haqal taagi lahayd adduun meelad kula gaara war uma hayside ilaahay intaad ka cabsatid madaaristaas iyo meelaha khayrka ah wax ka qabo oo ardada waxay u baahan yihiin waxa kamid ah qolalkiya nagu yar oo qayb gabdha iskala qayb wiil iskala qayb ku yar yar iskala nima waaweyn oo masaajid ku dhax akhristaa jiro meel qol iyo meel ay wax ku akhristaan aan lahayn marka qolalkaas oo kale loo samaamooyina jira iyaguna gabdhaha daba sugo isku wada qol yihiin iyaguna in qol iyo marka meel ay wax ku bartaan loo raadiyo intaas aan ku soo gaabin lahaa.